بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ummadda Soomaaliyeed aan leeyahay Ramadaan Kariim meel walba ay joogaan waxaan baaq u dirayaa nabadeed dhammaan xildhibaanada senatarada mas'uuliyiinta galmudug kulligood inay ka shaqeeyaan nabadda galmudug waxay soo martay dariiq fara badan oo lagu doonayo nabadda iyo xasiloonida dalka iyo midnimada galmudug waxay tahay maamulkii oo loogu talagalay in dadkaas ay ku dhismaan haddii marka dad yar ay rabaan arqalad geliyaan laga yeeli maayo haddii is ogol yihiin madaxweynihii iyo maamulkii la isku daray isku darsamo isugu darsamo oo heshiiyey labada dhinac ee gacanta is saareen waxa faragelinta loogu haayo aad bay u xun tahay ka federaal ahaan xildhibaanada federaalka waxa laga rabaa inay mucaawino geeyaan gobolka inay u daneeyaan shacabka maahan inay ka shaqeeyaan siyaasadooda ay yiraahdaan anaa madaxweynaha wax u sheegayo anaa ra'iisul wasaaraha wax u sheegayo anaa xildhibaanada wax ka dhimaayo ku daraayo ma dhacayso waxa jirta wax lagu heshiiyay heshiiskaas wuxuu ka soo dhacay Djibouti ayaga isku tagay ayaga heshiiyay dawladda federaalkana qayb bay ka ahayd marka heshiiskaas iyo nabadaas bilaabmatay oo Ilaahay subxaanahu qaadir inoo keenay oo labada dhinac madaxweyne xaaf iyo madaxweyne Sheekh Shaakir ay maanta gacanta is haystaan waxa loo arqaladeeyay aan waxaan u arkaa khalad baan u arkaa waana ka soo horjeednaa ummadana u bidhaaminaynaa dadka wada dhibkaas ku wada wixii jira waxa laga wada hadli karaa si deganaansho ah si walaatinimo ah laakiin gobolkii kala diraya waa kala guureynaa waa dagaaleynaa ma dhacayso madaxweyne ku xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka Cali Gacal waxaan ogahay dad wanaagsan inay yihiin waxa jirana inay dhameyn karaan waxa idin ka codsanayaa ummadaas hoostiina ku dhibaataysan inaad u naxdaan oo isku turtaan oo gacanta is qabsataan oo galmudug magaceeda maanta aad kor u qaadaan idinkaan wakiil nooga ah idinkaan noo jooga annagana shaqadeena waxay tahay ka xildhibaan federaal ahaan inaan mucaawino idin raadino inaan dadkaas wax u geeyno inaan dhibaatada idin la qaybsano ayay tahay marka dadka shirarka goonigoonida ku haya magaalada Muqdisho xildhibaanada iyo senatarada oo xalay war saxaafadeedka soo qoro yiri dhammaan xildhibaanada aniga kuma jirin xal shirki dadka tagay dhowr xildhibaanna ma jirin marka dadka ha isku wada darina annaga dhaha oo hebel ayaa ka qayb galay shirka oo waxaas doonayna dhaha meeshaas shaqo ma idin kaga taalo federaalka iyo senatarada waxaan ka codsanayaa xildhibaanada golaha shacabka iyo senatarada waxaan ka codsanayaa inay u turaan gobolkaas u madax baneeyaan madaxda gobolkooda ayaga laga warsugo dib u heshiisiintooda iyo wax markay idin soo codsadaan ayaan wax ka qayb gali karnaa laakiin maalin walba ilaa haysto oo la yiraahdo galmudug lagu dhageeyaa galmudug waa wadan madax banaan oo ayaga shaqadooda qabsanaya oo danahooda qabsanaya oo ogol federaalka ogol waay oo la shaqeynaya oo wax ay diidan yahay aysan jirin maxaa loo gacmeeyaa maxaa loo la dagaalamaya mana aha sunna wa jamaaca iyo galmudug ma aha waa galmudug dadka yey qaldamin hawsha socota iyo maamulka magaciisa galmudug la dhaha sunna wa jamaaca waa hore tanaasushay una tagaanushay shacabkeeda la shaqeyso inay gobolkeeda ka hormariso inay dadkeeda iyo dalkeeda isu keento ayay ka shaqeysay madaxweyne xaafna ma had ha gaarto dud libaax ayuu ku dangiigaa waa nin yaqaan sharci iyo shaqo yaqaan waay maantana ogol inay dalku shaqeeyo horumarkana ka shaqeeyo waxa lagu diidan yahay maxay tahay anigu waa garan la'ay waxa lagu diidan yahay waxaan rabnaa kaliya oo codsanaynaa ramadaanka fadligiisa hal isku naxariisto hal isku dabco hal is ogolaado gacnaha hal is qabsado horumarka galmudugna laga shaqeeyo